الصلاة خير من النوم. tobankaa bishaaro oo waaweyn oo salaada subxiga ay leedahay qofka salaadan subxiga ilaaliya oo joogteeya oo jamaacada ku ilaaliya waa qofka dadka ugu nolol fiican. waxay sabab u tahay salaadan in qofku ilaahay cadaabkiisa uu ka badbaado oo una naarta gelin. waxaa loo geliyaa nuur iyo iftiin taam ah oo dhammaystiran maalinta qiyaamaha. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وحان جعل يستي إنا نفتيذا إيا إذن كبا أين إسحسوسنا صلاة الصبح كمذا صلاةها شنطة إلهي الدومديس كفر ديالي اهتمامك الجونيدة يا عناية الجونيدة يا سيد الجونيدة يا شرع إلهي سبحانه وتعالى إنه أمري إيا بشاروين كواوين يا كسوغا قفكو مركو هبين كي سيحضو وراحدي سوقاطو وحاوور ريو نلشي الصبح كوب الله بيا وإنه إلهي سبحانه وتعالى أجته وكعبده صلاة فرضك إلا بدر رجعة وإنه صقعة قفك مرك إلهي وافتشي إنه سوي سقاته بيتك إلهي ماذا جماعة كالسوقيب قاله طوام بشاره والنبي يقول الشيخ صلى الله عليه وآله وسلم لقيسو البشارة الأولى وحويان نبي يقول عليه الصلاة والسلام صلاة دان صبحي قفكي تكده أو إلالية قفك سوحو كسوغيه إلهي حفظ كيسا إيا ضمان كيسا إيا إلالنتيسا أيها يستع وقف سوقاتي ساكي أمان حق إلهي كسوقاتي. الإمام مسلم أي حديث كسوصا بشارة اللبات النبي قال صلى الله عليه وسلم وحويان وحي السبب أطهي صلاة صبحي قال إلاليه إن قفك إلهي عذاب كيسو كبد باده أو النار تقري. وحو النبي عليه الصلاة والسلام نار تمجلها هيو قفتو كذا قرحضو انتين صبحين وصلاة صبحي يا انت اين دعين وصلاة عصرك قفكاس النار قلي معي. بشارة صدحادي وحويان وحي السبب أطهي صلاة وآد إلى لساء إن السبب كوغن نقطة جنة إلهي ناقشت. وحو النبي عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة. بخاري مسلم بصوصا labadaas qofkii tukada bardaynka ah jannadu galaya waa subxiga iyo casr. bishaarada afraad ee nabigu sheegay waxa weeyaan sallallahu alayhi wa sallam in malaa'iktu ay soo xaadirto. wuxuu nabigu yiri alayhi salatu wasalaam waxa islakiin cirbinayo isbabadalaha ya dhexdiina malaa'ikta habeenkii ku qoran iyo kuwa maalintii waxayna kulmaan oo isdhafan dhaafaan صلاة الصبح هي صلاة عصر. كوي حالة دحدينا كوهيدي أو كبريي با كر نقنا هيا أو حق إلهي الله بنيا إلهي وسؤاليا أسقو كأوجال بدن وحو كأوجال بدن يهيب إلهي سؤاليا الضم ضيدي سأوجا صوتكتين بل حالة دولا كورب مركزي وحي لينا وحاك صوتكنا أيوجو توكنا يا وحانا أتكنا أيوجو توكنا هيا. labada xilli ayaa laba xilli oo salaadahaasi ku beegan yihiin ay malaa'iktu isdhaafayaan. kuwii yimaada waxay u imaanayaan ayagoo tukanaya, kuwii tagaana waxay ka tagayaan ayagoo tukanaya. bishaarada shanaad ee nabigu sheegay waxa weeyaan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam salaadan qofka ilaaliya oo beedka ilaahay ku ilaaliya waxa loo geliyaa nuur iyo iftiin taam ah
oo dhammaystiran maalinta qiyaamaha oo wax nuur haysta ay yar yihiin wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad ugu bishaaraysaa dadka mugdiga soconaya oo masaajidda u soconahaya maalinta qiyaamaha in la siinayo nuur dhammaystiran oo taam ah ugu bishaare bishaarada lixaad ee salaadan ay leedahay waxa weeyaan qofka cishaha jamaaca ku tukada subxigana jamaacadeeda ilaaliya waxaa loo qoraa qiyaamu layla habeenkoo dhan inuu taagnaa waxaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka fii saxiixi muslim qofkii jamaaca ku tukadaa salaada cishaha waaba isagoo habeenka barkii taagnaa qofkii subxiga jamaaca ku tukadana waaba isagoo xaloo dhan tukanahaya xaggee ka helaysaa bishaaradaas cadiimka ah in intaasoo ajara laguu qoro xaloo dhan inaad taagnayd laba salaadood oo aad ku ilaalisay jamaacada sababto bishaarada toddobaadi waxa weeyaan oo nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam xadiidka waxa weeyaan qofka salaadan ilaaliya wuxuu ka badbaadayaa munaafiqnimada ayuu ka badbaadayaa wuxuu nebigu yidhi munaafiqiinta waxaa ugu culus salaadaha waa salaada cishaha iyo salaada subxiga weeye hadday ogaan lahaayeen waxaa ku sugan labadaas salaadood oo fadiilo iyo bishaaro weyn oo ajar ah way imaan lahaayeen ayagoo cuuryaamiinoo socon waayoo dabada ku siqayaba allaha ka dhigay haba ahaatee intay soo xamaartaan oo soo guurguurtaan bay imaan lahaayeen fadaa'isha salaadaani ay leedahay oo waaweyn waxaa ka mid ah labada ragco oo ka horraysa subxiga bal nebi moxamed muxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam rakcata alfajri khayru min addunya wamaa fiiha rakcataani weeyaan rakcata alfajri khayru min addunya wamaa fiiha labadaa ragco oo subxiga ka horreeya adduunyada iyo dhexdeeda waxa yaalla way ka khayr badan yihiin wax alla waxa adduunyada dhex yaallo hanti iyo maal ah waxa webiyaal yaalla waxa aan dabaqayays dul saarayno waxa aan haynoo dhan waxaa ka khayr badan labadaa ragco oo ilaahay dartiisa aan u tukanayno oo subxiga ka horreeya haddii marka sunnadeedii sidaa u fadli badatay maxaad u malaynaysaa waxa weeyaan faradkeedii oo waajibkaana maxaad u malaynaysaa fadiilada ay leedahay salaadaani waxa weeyaan ru'yatullah ilaahay subxaanahu wa tacaala baa qofka laazimo oo joogtaya ilaahay buu arkayaa maalinta qiyaamaha maxaa ka weyni badan nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam innakum satarawna rabbakum kamaa tarawna haada alqamar ilaahay baad arkaysaan maalinta qiyaamaha dayaxa si aad u aragtaan waxaa la aragtida xaggeeda la iskaga shabbahaya ee maahankan la arkaya waxaa lagu shabbahaya ee xagga aragtida dayaxaa sidaad u aragtaan habeen 14aada jooga oo qof ku cidhiirinaya aan la arag ayaad ilaahay maalinta qiyaamaha u arkaysaa haddaad awooddaan inaan laynkaga qaalib noqon oo aan laynkaga hormarin salaada subxiga iyo casirka sameeya taasaa nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam maadaama mu'miniintu ilaahay ay amrayaan arkayaan maalinta qiyaamaha ayaa nebigu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam war camalkaani camal jaliila weeye ilaahay ugu dhowaada dadka raba ilaahay inay qiyaamo arkaanow oo ilaahay u naxariisto ridihiisa helaanow camalkaana nebigu baraarujinaya sal alla alay wasalam fadaa'isha ay leedahay salaadan waxaa ka mid ah ana almuxaafida calaa salaati الصubxi maca aljamaaca min aطyab الnaasi caysha qofka salaadan subxiga ilaaliya oo joogteeya oo jamaacada ku ilaaliya waa qofka dadka ugu nolol fiican wa anshaطihim badana jismi ahaan marka la yidhaahdana maalintaas waa qofka ugu nashaad iyo firfircooni badan wa ancumihim qalban qalbi ahaan marka la yidhaahdana waa qofka ugu farxad badan oo ugu qalbi qabow dadka weyn nebigaana yidhi calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu nebigu leeyahay يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد marka qofku uu seexdo ayaa shaydaan 3 dabar ku xiraaya oo madaxa ama qaafiya dushiisa wuxuu saarayaa cuqudooyin buu ku xiraaya cuqadkuna waa guntimo shaydaanku habeenkii markaa seexati ku isticmaalayo weey 3 dabar ayuu kugu dabraya oo guntimaha ah markaasaa nebigu yidhi faida stayqada fadakara allaha inxallat cuqda hadduu qofku hurdadii macaanka badnayd ka soo gilgisho ka soo kaco oo ilaahayna uu xuso oo adkaartii uu akhristo markuu qofku soo kaco
xarkihii iyo guntimihii lagu xiray mid baa furanaysa fain tawada'a inxallat cuqda hadduu weyse qaatana mid kala go'day fain sallaa inxallat cuqda haddii salaaddii subxiga uu tukadana oo jamaacadii iyo khayrkii u ilaaliyana kii saddexaad baa go'ay fa asbaxa nashiidan tayiba nafs waxaa waagu u baryayaa asagoo ah mid wanaagsan oo firfircoon oo waxa weeyaan tayiba nafsiha naftiisu ay diib tahay oo qalbigiisu qabow yahay oo qalbigiisu qanaaco leeyahay oo badankiisu firfircoon yahay ayaa waagu u baryahay saasaa ku waabarista wailaa asbaxa khabiisa nafsi kaslaan ayaa nebigu calayh salaam hadduu sidaa yeeli waayo oo xuduurkaa jamaacada iyo khayrkaa ilaalin waayo wuxuu waagu u baryahayaa asagoo khabiisu nafsi ah mid nafxuntiisu xun tahay ah kaslaan oo wahsilow ah oo balaaya dul saaran tahay xarkihii ku xirnaa buu saaka la soo kacaaya markaasuu iska dhacdhacaya meeluu u socdo unan garanahay waa qof dammaadsan weeye salaad la'aan baa ku dhacday jamaacadii baa dhaaftay saaka walidaalika nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo sheegay qof seexanaya oo ilaa qorraxdu ay ka soo baxaysa iska hurdahaya markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam daaka rajulun baala shayطaanu fii udunay kaasi waa qof waxa weeyaan shayطaan labada dhegood oga kaadiyey aw udunihi shaku min araawi wey ama dhegtiisa shaydaan ku kaadiyey waxaa marka la rabaa walaalayaal inaynu salaadan ilaalinno nolosheenna laga bilaabo maanta inaan wax ka beddelno tobankaa bishaaro oo waaweyn oo salaaddaa subxiga ay leedahay waa inaan ilaalinaa masaajidda salaadda subxiga waa cidlo dadkeedii dadkii ku tukan lahaana ma aynan dhiman mana aynan guurin ee waa joogaan waa deegaanka deris bay leeyihiin salaadaha kaley camiraan salaadda subxigana masaajiddu waa cidlo waa in dhaqanka noocaasa la beddelaa muslimiintu ciz iyo sharaf waxay leeyihiin marka salaadda subxiga safka hore ay isku cidhiidhinahayaan oo cidhiidhigu ka taagan yahay oo la camirahayo markaasaa cizigooda iyo sharaftoodu ay u soo laabanaysaa qoom haddaad rabti inaad ogaatid in diinta ay ka sii baaba'ayaan oo diinxumo ay ku sii socdaan salaadda subxigaa laga eegaa haddaad ku soo aragtay odayaal 4 iyo 10 iyo waxa noocaas oo masaajid ku tukanahaya xilliyada kalena la tukanahayo oo dhallinyaradii la waayey qoomkan waxa weeyaan diintoodii dhallinyaradii xambaari lahayd khadka way ka bixeen waa maqay meesha dhallinyaradu ay salaadda subxiga dhooban yihiin oo ilaalinayaanna dadkaas waxaa u socda nuur iyo iftiin iyo khayr iyo barako iyo horukac ayaa ka muuqda ilmaheenna aan salaadda soo xaadirinno annaguna nafteenna aan geyno sala allahu calaa nabiyina muxamed